degmada allay baday ee gobolka Gabiley si weyn ayaa loogu qaabilay waftigii uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee socdaalka ku gaala bixinayay gobolada galbeedka Somaliland si ay ugu kuurgalaan xaaladda bulshada reer Somaliland ee jiidaha ku dhaqan dhammaan bulshooyinka reer allay baday waxay muujiyeen taageerada xooggan ee kulmiye uu ku leeyahay jiidahan madal bilan oo ay soo buuxdhaafiyeen dadweyne aad u tiro badan ayaa kulmiyay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankan ku dhaqan madax dhaqameed waxgarad waayeel haween siyaasiyiin reer allay badaya ayaa tilmaam ka bixiyay sida ay ula dhacsan yihiin siyaasadda hogaamineed ee xisbiga kulmiye reer allay bado ballanteenu waxa weeye maalinta la footaynayo in kulmiye loogu rido haddii la yiraahdo iska ilaaliya dadka kaararka urursanaya reer allay baday sooma ballan qaadno inaynu kulmiye nahay oo inuu ridayno ballanteenu soo taamaha waxaan leenahay annagu sida xisbiyada kale intaanu dad ka soo gurro hargeysa odhan mayna allay badaan lagu soo dhaweeyey allay baday iyada ayaa ismaamusha iyaday dhaqan iyo caado weligeedba u ahayd in ay sidaa wanaagsan ee quruxda badan leh u soo dhaweeyaan xisbiga kulmiye qabyaalad kuguma dooranayno dadnimaannu kugu dooranaynaa geesinimaannu kugu dooranaynaa calooladayg baannu kugu dooranaynaa sidaasaannu kugu dooranaynaa ee annagu qabyaalad iyo waxba kuma dooranayno muuse biixi cabdiow codkii jeebkaaguu ku jiraa ee maanta waxaannu ku siinaynaa dhiigga inaannu kuu shubno inaannu dhiigga kuu shubnaan diyaaru nahay waad nagahaysaa codkaaga horena waad nagahaysa maantana waad nagahaysaa jeebkaagu kugu jira xisbiga kulmiye ee madaxweynaha u ahaa maxamed maxamuud siiraayo si fiican buu waddanka wax uga qabtay waad ogtihiin kollay raalli bay baa noo beeriyo xun baynu ku foorannaayo looma soconno caalamkeen siduu waxa uga qabtay waa si la yaab leh muuse biixi cabdina waa nin dhalinyaro sidaa iyo si ka daran ayuu wax uga qabanaya muusena waa nin go'aan leh Somalilandna waxay maanta u baahan tahay nin go'aan leh allay badana muuse way is yaqaanaan kol gaari laga qaadiyo kol la soo dhaweeyaba waa lagu hoyn jiray markaa waxaan leenahay waad mahadsantihiin ballanteeduna waa muuse inaynu taageerno waxaan halkan ka caddaynayaa waxay indha arkayaan bay ilka gooyaan lugina jeeri ma tallawdo muuse kor waayar waa wada indho indhahaagaad ku arkaysaa xasaasiyadda ka muuqata degmada allay baday waxaan leeyahay waxaannu hiil iyo hooba kuula garab taagannahay sidaannu codkaaga maanta waad aragtaa say reallay badi kuugu soo baxeen berri taalana waa codkii waxaa naga balana inaannu codka kugu ridi doonno madaxweynaha mustaqbalka daada yar muuse biixi cabdi ha noolaado dawladda soomaali ha noolaato insha allah biidnillaahi kariim ilaahay waxaannu ka baryaynaa inuu isagu qabsado wasiiro siyaasiyiin maayiro ka hadlay madasha ayaa hoga tusaaleeyay guulaha kulmiye u suurto galay intii uu hoggaanka qaranka hayay in mudane cabdilcasiis oo reer allay baday ah oo hal lahaa oo maanta garabkaaga fadhiyo bari iyo galbeedow kula soo maro waa shoulder to shoulder waa halkii maraykanka aad ahaydeen ilaa maantana aad ag fadhidaan ilaa aad kursiga fadhiisanaysana sidaa insha allah waad isku ag fadhihi doontaan dadkanin dad la soo qaaday ma aha waa dadkii reer allay baday oo sidooda isku muujiyey ilaa xalay ilaa shalay kamaannaan seexan guriguri baannu u dulgallay waannu soo taabannay waxaannu maanta halkaa ka caddaynaynaa waa dadkiina doortay ee codkana siiyey soo muuse dooran maysaan waxaan idiin sheegayaa in codka allay baday uuna mid gorgortan ku jira ahayn waxaannu u soo muhaannay allay baday waxaannu ugu soo muhaannay waxa weeye waxaannu ku ognahay taageero waxaannu ku ognahay niyad wanaag waxaannu ku ognahay inaanay waxba nagala hadhi doonin waxaannu u soconnaa waa codka waannu hubnaa inaadna siinaysaan haddii alla yidhaah waxaannu Gabiley markaannu joognay iyo meelaha kaleba waxaannu iyana weyddiisanaynay hantidii lagu gelayay hawsha ee codka lagu doonayay allay badanayana waa uga fadhinaataa ballanbad badanna waannu ka haynaa Gabiley iyo awdalbee allay badanna waannu ka fadhinaa markaannu shaandhaynay een meel walba marray ee aan talaba kasta isweyddiinnay
ee aan baadhaynay sidii turubka waxaannu go'aansannay in masayrkayaga iyo taageerayaashayadu aannu ku kabno xisbiga kulmiye oo mujaahid muuse bixi cabdi maanta somalilan u baahan tahay musharaxiinta tartamaya waa labo qola iyakaa u baahan inay madaxweyneyaal noqdaan qolana waxaa dadkaa u baahan muuse bixi cabdi qaranka somalilan baa u baahan innagaa u baahan wasiirkii hore maaliyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale ayaa yidhi degmadani iyo gobolka gabiley oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey murashax madaxweyne uu joogay iyo wafdiga uu hogaaminayaaba waxaad markhaati ka tihiin oonu markhaati ka nahay oy somalilan markhaati ka tahay gobolka gabiley inuu horraysiya dambaysaba codkiisa ugu badan xisbiga kulmiye lahaa soo sidaa ma aha maantana inuu ka sii badsado mooyaane muu ka yeelaysanayaa wuu ka sii badsanayaa soo ma aha codkayaad siin doontaan guusha ayaa yeelan doonaa cidda ilaahay siiya insha allah oo xisbiga kulmiyaa xisbiyadeenna kalena waa iyagana waad soo dhowaynaysaan laakiin codka laysku soo dhowayn maayo codka cid baa leh codka xisbi baa leh laakiin soo dhowaynta kale waa la wada leeyahay saddexda xisbi way wada leeyihiin waayo sharaftaa ku jirta labada xisbi qaran ee kale dayf bay idin yihiin marti bay idin yihiin waad soo dhowaynaysaan hadal wanaagsan iyo sharaf baad ku soo dhowaynaysaan codkase kulmiyaa leh xisbiga kulmiye murashaxiisa muuse biix cabdi madaxweyne ku-xigeen cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa leh una badsanaya boqolkiiba boqolle inaad siisaan la rabaa waanan hubnaa gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye muuse biix cabdi ayaa u mahadnaqay dadweynaha reer allay baday ee sida ballaadhan u soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminayo halkan maanta waxaan u soconnaa inaannu idiin warranno oonu jamhuuriyadda somalilan bari iyo galbeed warkooda isgaarsiinno bari waxaa idinka xigan dhulka intii badnayd oo kumaanku kilomitira hase yeeshee si qaranka somalilan u dhismo iyagoo dawladda somalilan wax badan ka arag iyadoo magaalooyinkoodu weli aana dhisnayn iyadoo oon maamulku gaadhin badankooda ama uu daciif ku yahay iyaga oo dhibaatooyin badan oo abaara ah qaba iyaga oo qaba colaado kaga soo fufaya soomaaliyadii ikaarta qabtay aynu beri hore ka soo baxnay iyagoo waxaasoo dhibaataan qabaa haddana waxay guddoonsadeen oo inagu taageereen oo inaga aqbaleen in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka soo socda oo labaduba reer galbeed ah oo labaduba isku meel ka yimid oo ku kala dhashay laba magaalo aan dhowr boqoloo kilomitir isu jirin inay dhammaan somalilan tidhaahdo waannu taageeraynaa oo waannu codkana waannu idin siinaynaa oo waa isku kinaysanaa reer galbeedow xilka somalilaanda galbeedka fuushanay waxa weeye maaha doorasho qura inaad bixisaan waxaa laydinka rabaa caqligii iyo caddaaladdii iyo ilbaxnimadii ay somalilan ka dhaxal lahayd ku dooran lahayd baa laydinka rabaa fariintaan u siidnaa waxa weeye somalilan way idin dooranaysaa way idin codaynayaan laakiin waxaa idin saaran xilka ah waar markaannu xilka idiin dhibno iyo iminkaba maxaad galbeed oo dhan haysaan ballanta laydinka qaadaya waxaannu haynaa caddaalad waxaannu haynaa ilbaxnimo waxaannu haynaa horumar waxaannu maraa inaynu is aaminno ooynu dalka wada leenahay oo aynaan kala lahayn oo nin waliba halku doono uu degi karo waxaannu idin haynaa inaannu idiin ballan qaadnay inaannaan wanaag mooyaane wax shara aadnaan haynin galbeed maanta tasaarni waa taa rag iyo dumarba kulmiye qorshihiisu waxa weeye inuu sii wado dhabbihii uu jeexay madaxweyneha hadda jooga ee barnaamijkii hore xisbiga ee berigii hore lagu hawlgalay intiisii badnayd waa la fuliyey annagu waxaannu haynaa waxaa waa qabannay intaasina way naga qaldantay oo waannu saxaynaa intaana haddaannu curinaynaa oo wadda jeexan baannu haynaa oonu qabyo tirayno murashaxiinta tartamaysa marka lu qiyaaseennu sir qiyaasno murashaxaanna mid baan leeyahay oo aanay iyaguna igu haysan idina markhaad ka tiino dalka iyo dadkaba waan uga waaya aragsanahay waa niman muddo kale murashaxiintu waa niman aqoon leh waa niman goba waa niman wanaagsan laakiin midda aan dheelahay waxa weeye sidaa ii dheer yihiin inay fiinland iyo ruushka iga yaqaanaan iyagu anna dalkaan uga aqaanaa geedgeed ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan degmada allay baday ee gobolka gabiiley.